gabadhu waa idilo geesi uu dhalay iyo gaaridii dumare gabadhu waa idilo geesi uu dhalay iyo gaaridii dumare geedka wiil yimido gobgobtii
noloshu waa guure rugta noloshu waa guure raxmakaale yadini wayrumowde roble kaalay horamadko hayga roodine raxmakaale sorlayo kamaragine roble waykan rugta noloshu waa guure roble kaalay hayadii jacaylkiyo raysiyo baadi ruxubtii kalgacalkiyo reexaan udgooni nafta raaxadeeday rajadaan sugaya ubaxraabka qahiriya ramaajiya duldoodo ujan calabka lamaha ruuxaduu ku maran tahay sida loogu reeyay amba hayadii jacaylkiyo raysiyo baadi ruxubtii kalgacalkiyo reexaan udgooni nafta raaxadeeday rajadaan sugaya ubaxraabka qahiriya ramaajiya duldoodo ujan calabka lamaha ruuxaduu ku maran tahay sida loogu reeyay amba dayaha uroone iti lagu rakibaye maankaygu raaca alla ilahe sidaa rabay habiima diidin yeeraga wayraga kanka doorto dayaha uroone iti lagu rakibaye maankaygu raaca waa guure rugta noloshu waa guure raxmakaale yadini wayrumowde roble kaalay horamadko hayga roorine raxmakaale sorlayo kamaragine roble waykan rugta noloshu waa guure roble kaalay lagu baahireebay raalidii ideeqiyo reerka haydiisa ubadkiyay bawlaha rabbi ku beero rajada sugaya layo ilmeeyo wixii xigayo niraye bidowto umambeekuyaliyo ambelayda raacay rugban waa qataalo lagu baahireebay raalidii ideeqiyo reerka haydiisa ubadkiyay bawlaha rabbi ku beero rajada sugaya layo ilmeeyo wixii xigayo niraye bidowto dayaha
شرماكة قال سليمان براله يوم مروة آمنة محمد أحمد أيام مهركو دمات هذا نفرنا فكان الناس سيد حفلة يقول الله دي لهم من كفرنا قرآن كريم أقصد هنا حلوان محمد نور فارح عندما قصدوا كوحويا أيضا أخوانك لا وافعوا بيوتنا وحانوك بينا وذلك السعودة وينك دورك بسنية بيشيسة وحاوليا حلوان محمد عبد الله علمي قصدوا حلوان العالمين صلوا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أمورين بأيام goobtan ee dad muslimiin laga dhigay hadda ala kadib waxaan salaamayaa dhammaan qiyaamta sharafta ee ka soo qayb gashay oo soo ajiibtay xafladan meherka ee halka dhacsa qiimaha badan wasiirada iyo xildhibaanada iyo isimada iyo dhammaan iyo xaqiiqadka aad baan u salaamayaa waxaan idinka mahadcelinayaa sida qiimaha badan ee loo soo ajiibay xafladan meherka inta haddaan ka gudbo sida hore loo sheegay xafladani waa meher weeye meherkaas oo sidii caadada ahaan jirtay ay laba beelood ay isku weydiisanayaan gabadh labada beelood waa beesha warsangeeli iyo beesha warbahante labada beelood walaalaha ah oo siday ahaan jirtay insha allahu tacaala waa xaflad sharaf badan oo waxa weeyaan si dadka caadada ahaan jirtay halkaas oo beesha walaalaha iyaga ah anoo ka hadlaya magaca beesha in nala siiyo gabadhaas la yidhaahdo naloo dhacayo meherka sida ay ahaan jirtay marka iminkana waxaan kusoo dhaweynaynaa dhinaca kale wakiilka gabadha aadan siciid cismaan maxamuud meesha fadhida oo ay ugu horeeyaan ismada sida garaad saleemaan garaad maxamed iyo boqor cabdullaahi ismadii weeye la dhaafi maayo xildhibaanada aqoon-yahanka culamaauddiinka guurtida dadkaa ka soo galay sharafta leh oo xafladan meherka ee labadaa dhalinyaradaa oo la tilmaamay meherkooda ka soo qaybgalaya xafladooda salaanta islaamka ayaan ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bale marlabaadka haddaan u gudbo arrinta nuxurkeeda soomaalidu waxay ku wada dhalatay ardaageel baxri gabadhii lagaa bixiya waa mid bilan oo waa mid boqor dhali baan oradi markaan ku heysay gabadhaa aan caadalkeeda anigu ahay haddaan ahay siciid cismaan maxamuud shamayste oo la yidhaahdo aamine maxamuud axmed iyo ninka la yidhaahdo sharmaarke saleemaan buraale aadam labadaa dhalinyaraha oo isdoonay muddo badan oo soo sheekaystay kolley waxay isku qanciyeen labadeenaba waxaynu ka soo jeednaa reero salaadiina bay ila tahay isaga waxay ila tahay ninkaa garaadna waa dhalay garaadna abtigiisu yidhaahdo waa garaad saleebaan iyaduna waa gabar reer cali shire ahoo ninkii garanaya nimasuu ka yaba reer cali shire cawn ahoo reer maxamuud cali shire ah weeye iyo dabku shidi mayse waaba baarkay usii baxa markaan taa idhaahdo labada beelood oo gabadha isweydiistay mar haddii ay ismadaa ku abtirsadeen soo jireenka ah oo guud waa laba qaran beel oran maayo waa beelo bay matalayaan beelaan oranaya waayo beel ka balaaran beel wax yaqaanaya marka soomaalida te xere reer hebeliyo la yidhahdo daldan waa ka nahay caro dhahay gabadhaa la yidhahdo ninkaa la yidhaahdo dhalinyarada oo aynu tilmaanay oo magacaa leh oo abtiriskaa leh oo gurigaa ka soo jeeda oo la yidhaahdo sharmaarke garaad saleebaan garaad buraale aadam iyo gabadha la yidhaahdo la weydiistay gabadha la yidhaahdo aamine maxamuud axmed haddaanu nahay beelaha ay ka soo jeedo oo qaranka ah gabadhaa beesha siciid harti waa ku wareejinay waana siin waxaan ugu daraynaa meherkii sidii la arki jiray labadaa qof oo dhalinyarada ah culimadiina waa joogtaa sheekh dhuux baa jooga qaadigii baa jooga gabadha wakiilkii baa jooga oo xildhibaan wuxuu yahay cabdixakiim maxamed axmed oo lasoo wakiishaas walaayadoodii sida
oo isagoo gacanteena ku sida waxaan leeyahay gabadhaa waydi siinay saqiir artiyow idinkoo ismadiinni iyo xildhibaanadiinni iyo culamaauddiinkiinni iyo aqoon-yahankiinni kulan oo gabadhaa naga doonaya si sharaf leh oo sugan baan gabadhaa idinku wareejin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdisaiid ismaan maxamuud waxaan ku soo dhaweynayaa si uu u gudoomo xildhibaan saaiq qabshi garaad gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka xildhibaanada wasiirada aqoon-yahanada kale akhyaarta kale joogta waa salaam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ku mahadsan yihiin beesha waalaha nahay sidii sharafta ahayd gabadha noo weydiistay iyo siday noogu jawaabeen iyo meherka ay noo raacinayaan aada iyo aad baa ugu mahadsantihiin wadinka guddoona waana sidaan filanay waa wax dhaqan u ahaan jirtay dadkeena guud ahaanba marka waa xilligii qalada iska geli doonaa wixii ka dambeeya guddoonkii waa idinka guddoomanay waxaan jecelahay marka in meherka loo gudbo aad baa mahadsantihiin ku-xigeenka baarlamaanka wasiirada aqoon-yahanka oo ay uga horeeyaan brofesoorada culimaautiinka saxaafadda dhammaan waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib hadal badan halkan kuma jiro gabadhi waa la isweydiistay waana laysa siiyey anigu mas-uuliyaddeedaan hayay waana arrin sharaf leh sida hadda garaadku saacadda uu sheegayay xildhibaanku waa arrin soo jiran ugu maaha waa arrin culada horaa la isu weydiisan jiray xaq waa la isugu leeyahay qolada wax la weydiistana waa la sharfay qolada weydiisatana sharaf baa loo celiyey oo gabadhi baa la siiyey soomaalida wuxuu ku maamaadaa kaftane waxaa la yidhi dad yaa ugu dhiiran baa la yidhi oo waxaa la yidhi dad waxaa ugu dhiiran ninka dad weydiista waxaa la yidhi dad yaa ugu deeqsisan oo waxaa la yidhi wadada waxaa ugu deeqisan cidda ninka dad la weydiistoo bixiya labadiiba halka way ka dhacaan soomaalida waxaa ku maamaadaa haanta marka loo ayo marka xaggaa loo ridana kugusan baa layidhaha marka xagga loo ridana kugusan subag baa ka dhasha marka waxaa weeye gabadh baan la weydiisanay iyo weydi siinay reer baa ka dhalanayo subag baa ka dhashay maasha allah marka insha allah arrintaas saasay ku gabagabaysan tahay anigu mas-uuliyadda gabadhaan hayayo aayadda oo maanta anaa sodor waa sharmaarke hadda insha allah meherkeenu gudagelaynaa insha allahu hawsha waxba badin maayo waan mehernaynaa wixii wacdiyo baraarujinana insha allah sheekha inaan doona asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الهادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد baan waxaan u salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladan sharafta leh oo dhamayska tiran sharciyan iyo curfiyan ama dhaqan ahaan dhamaystiran ru'aantii salaantii iyo maxay ahayd tooy waxay noo bixiyey maxay raas mas-uuliyiinta iga horreeyey aad baan sidoo kale u salaamayaa isimada garaad saleeman garaad maxmed hogaaminayo boqor cabdullaahi hogaaminayo oo de iyagaa makata ka horreeyay xildhibaanada iyo maxay ahayd waa iyagaa soo doorsa waxaan kaloo salaamayaa xildhibaanada tirada badan oo sharafta leh oo soo camiray waxaan u malaynayaa dee xaqiiqatan waa naba tahay xildhibaanada nin ka mid ah ama magaranaysaa qayb xildhibaanada ka mid ah ayaa magaranaysaa caruusinoo ah sida ay soo camireen arrintaasoo kale waxaan rabay insha allahu tacaala garsoorka waa markii mid inaga mida guursado haddii ilaahay maxay ahayd raggaan soo arkay aad baan iyagana salaamaya sidoo kale golaha xukuumadda qaybta ka fadhida rag badan baa ii muuqanaya sidoo kale waxaan dhammaantiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaan runtii waxaa lay saaray mas-uuliyad xoog badan ilaahi subxaana wa tacala waxaan barya inuu fududeeyo taasoo shareecadan islaamka waafaqsan nikaaxa kan insha allahu tacala sida u muuqata oo goobta ka muuqata waa nikaax dhamaystiran shareecada islaamka nikaaxu wuxuu ku taagan yahay arkaan shan ah shantaasu waxa weeye marka u horreysa in la helo zawj nin wax guursanaya in la helo gabadh la guursanayo qof dumaroo la guursanayo in la helo maxay ahayd weli gabadha bixinaya in la helo laba markhaanti in la helo siiqa oo ah ijaab iyo qabuul macnaha waan ku siiyey iyo waan kaa guddoomay shantaa tir ayaa waxay tahay arkaanta nikaaxa marar badan ayaa soomaalidu mid tuurtaado hawlyari iyo maaqan waxay uga jeedaa dumar dhaqanka xoogaa waxeegayaado marka kani waa mid dhamaystiran oo shareecada islaamka ku baysgaraysan oo dardaaranka nebiga calayhi salaatu wasalaam diinta ku farta aad baan uga mahad celinayaa sida sharafta leh waxaan kaloo aad uga mahad celinayaa
magaranaysaa guurkii gayaanka ahaa oo maxay ahayd toy sharafta badnaa oo maaragtay xoogaa magaranaysaay beeluhu isu guursan jireen anigoo runtii heelinaya aabbahayn oo heelinaya maadaama aan abtiyada yihiin beesha dhulbahante runtii aad baan ugu taageersanay guurka sharaf kale aadiya intaa markaan ka soo gudbo insha allahu tacaala waxaan gudagelaynaa nikaaxii ama xigmaddii meesha laysugu yihin guurkii laysugu yihin meesha baan gudagelaynaa insha allahu taala saas hadda halkaasaan gudbayna marka إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد والله النكاح شرع الإسلام عربي وكان صحة عجمي وكان عجمي معناها اللغة الصومال وحين عربي هم عجمي لأن تنون من المسؤولين فإن شاء الله تعالى وحى وكيلك قبل الله صوّى كي شيء اللي بان عبد الحكيم محمد أحمد اللي بان مهر كما كان شيء تزوج عشان ما يقول مهر كما كان شيء إيه يسوي يقول مهر مهركو قبردو وبقول كتاب وقرآن ولو جينيو مساجد إله سبحانه وتعالى مكرس هاي فضل قرآن كي إله سبحانه وتعالى حريص الجنة يقول شو أنت أنا كسو بدملو عبد الحكيم عند الساعة شربارك قرأ سليمان برالة آدم قبل مقعد اللي ياهل آمنة محمد أحمد أو وكيل كي يهي اللي بان عبد الحكيم محمد أحمد ومهر كيدو يهي بقول كتاب أو قرآن أو مساجد لوجيو أو أي شهود يمرخانتي كي يهين لبا مرخانتي عاقل سعيد عثمان محمود هي صادق قرار خلبان قرار صادق أبشر قرار محمد ما أقبل شيء كور كا شرع ما شاء الله الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وبارك عليك وجمع بينكم في الخير إلهي إذن كدقوا كوي خير كل ما سوق لا لا كدقوا وحين ودع عقدي مهرك أنت كبعلي النبي عليه الصلاة والسلام وحسمين تري وبضح النكاح إن إلهي سبحانه وتعالى مركو هركي لسكح السايات نساء وحن حسوسين يا أيها الذين آية القرآن وأنا نفتينا بالله دوري عن حصينا حوجا عن استجسنا إلهي سبحانه وتعالى آية القرآن أخوي كم إذا هي محي هي مهرك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما آية هذا اللي يدرس تاجنا إلهي سبحانه وتعالى وحدة إلهي نبي وهكذا لنا يسا وضدك قال الله وماشي كبحي مؤمنين تبع قال الله صاعي إلهي كعبس ذبالي عبس إلهي وحلو صور رياء وحي إلهي كأمرين إلى التمادي وحي وكاره وينا إلى الكهدث ضد كان وضدك العلوم سقبلنا أما خيار مسؤولين بدن فاهم بدن الله سبحانه وتعالى فإن أمر دي سلام يزون يسكب باكم بذا وحي إلهي حريم أن تكسر كتشد بين يظلم حرام باكم بذا إلهي سبحانه وتعالى عبسيدك بعد وحي مركز هالليستان وقولوا قولا سديدا مركز هالليستان وحد هذا الوناكسن هذا الكوناكسن وحولوا وناتيا مeel kastoo la joogo iyo makaan kastoo la joogo وقولوا هذا هالليستان هذا dadku ishaayeen hadal wanaagsan la yiraahdo ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala amraya hadda sidaas sameeysan hadalka wanaagsan tiraadaan oo Ilaahay ka cabsataaniin يصلح لكم أعمالكم إلهي وحاجاتي شغلنا عملنا في آخر يوم الدنيا ويغفر لكم ذنوبكم ذنبنا إلهي والرافية ومن يدع الله والرسول وقفك إلهي الرسول أمر قولا فقد فاز فوزا عظيما وث الليبان وين آيات القرآن حديث النبي عليه الصلاة والسلام صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وفي أمرين يا معشر الشباب نقول على الجلال يرد كون كذي من استطاع منكم باطا وقفك إن كم يقولك أو فليتزوج وركع سبوس وإنه غض للبصر
wuxuu guurku laabaa aragga iyo firfirinta guurku leeyahay dumarada indhaha lama raaco waa axsan lifarja geedka xumaana waa ka nabadgalaa فمن لم يستعوض كأن أود فعليه بالسقوط كأن قول أودنا ورأسه ومسيح الشهوات وقال ذلك الرجال كاتب قام وحنتسو كوبنا إن شاء الله تعالى آيات القرآن كآية كان عليه الصلاة والسلام إن نقول كفتها ونو ما دام إلى سبحانه وتعالى ما تولى بدل ويا لين ضد خيار ما دريمي إن مجال العلم مجال بدل خير برسيه إن شاء الله تعالى وإنت كوكب سمحت بالبنية عن الإنسان نقول عيننا نبستريها ونسوي تنسيق صراحة هذه المسؤولية الشيخ محمد الشيخ حسن حول أرسل رصدنا وحول وهم لنا عبدالله بارك الله لكم وبارك عليكم. دعاء هذا ركن دعاء الحمد لله وياش سمعنا وخشنا ويانا لكن وحافظ يقول كلام كلام البرلمان حسين ياسين حشدية وما دام شرمان وياي شغالها maamulka baarlamaanka ka tirsan marka gudoomiyuhuna dhinac kale u baahan sheeko soo galaya gudoomiye kusoo arooska sharmaarke saleebaan iyo aamina maxamed cali maanta oo ka dhacay halkan aynu fadhino nayuras waxay la tahay ismada ayaa ducayn doona laakiin anigu waxa weeyaan waxaan leeyahay reerkii lagu hodmee isma noqda ilaahay khayr waxaan farxad iyo bogaadin baan ii soo jeedinaynaa dhammaan waxaan ku faraxsannahay arooskan ducadiina odayaasha ayaa iman doona waxaan leenahay sharmaarke xil weyn baa ku fuulay maanta xilka maanta ku fuulay waxa weeye waa xil adag baa ku fuulay xilkii mustaqbalka ayaa ku fuulay xilkii mustaqbalka gabadhaa ku fuulay anigu waxaa hogaaminayaa xilkaa maanta ku fuulay xafudaysan soomaalida waxa weeye waxaa la yidhahdaa guurka marka horena waa sino dhuman yahay marka dambena waa sino balaaran yahay marka horena waa sino dhuman yahayo gabadha ka guursaas tirahda marka aad gabadha guursato baa wax walba cirkaas kula baxayaan marka hawl badan baa ku sugaysa allah kuu fududeeyo iyo mas-uuliyad badan mas-uuliyadda qofka bini-aadam qaadi tii u qaadsanay ugu weynid ayaa ku fulaysa maanta saacaddan inan joogno reer ayaa madax u tahay awal madax baa lagu ahaa maanta adigaa madaxa waxaan aad iyo aad iyo aad baan kuga aguriyeynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad buu u mahadsan yahay gudoomiyaha ku-xigeenka labada baarlamaanka siyaasi iminkana ismailan soo gaadhay waxaan marka kusoo dhaweynayaa xildhibaan cusmaan dalma xaaji yuusuf wasalaan ka sida garaad cabdullaahi cali ciid sudow meherku ka dhacay fadhiya iyo dadka kasoo qaybgalayaasha kala duwan ugu horeeyo madaxda golaha baarlamaanka shaqaalihiisa aqoon-yahanada goortida odayaasha kale ee sharafta badan dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa aad iyo aadna khayr iyo duco ugu ishaarayaa reerka cusub ee halkan laga yeegleelay waxaan jeclahay inay taa iga guddoomaan sidoo kale waxaa salaan iyo duco iyo hambalyo intaba kiin ii soo faray madasha iyo reerkaba garaad cabdullaahi cali ciid oo boosaaso joogo oo soo gaari waaya halkan oo malaha faamaliga labadiisa dhinacba ay jeclaysteen inuu kala soo qayb galo xafladdan markaa sidaa awgeed iyadana waxaan jeclahay ka odayaal ahaan iyo isma ahaan iyo ka reer ahaan iyo ka xaflad ahaanba inaad arrintaas laysoo faray guddoontaan ilaahay idamkiisna khayr baan u rajaynaynaa reerkii baraara oo lagu dego oo lagu nastaa ilaahay ka dhigo udan khayr dana allah kala siiyo waa matid aad buu xildhibaanku mahadsan yahay garadkana waa ka guddoonay salaanta waxaan kusoo dhaweynayaa boqor cabdullaahi axmed cali oo kelmad dacaa insha allah الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بالدوام الملك له مدحنا
isugu timi halka nooc walbale dhaqan iyo dawlad iyo baarlaman iyo culimo iyo aqoon-yahan iyo dhalinyarada iyo saxaafadda kulligii waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib maanta hadalkale ma yaal labada dhalinyarada ee isdoortay ilaahayna isu gartay meherkoodina halkan ka dhacay ayuun baynu una hambalyeynaynaa una ducaynaynaa. marka waxaan leeyahay haddii guur sharaf leeyahay waa kii ugu sharaf badnaa qaabilaadda halka ka dhacday sida laysu siiyey. faamiliyaduna waa tii hore laga sheekeeyado dee roobku waa israadsadaaye waa roob israadsaday baynu odhan karaa waa madaxay raadsatay ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu isu barakeeyo. marka sida waxaa hadalkale ma jire garaad cabdullaahi cali ciidna waa u guddoonay isagoo ka mida isamada yimi ilaahayna caafimaadka siiyo u xanuunsada. labada dhalinyaradaana reerka ilaahay mid baraka leh oo khayr badan oo ubad wanaagsan iyo adduun wanaagsan iyo aakhiro wanaagsan baa kala dhaxlaha noqdeen uu salkeedu noqdo. hadalkalena ma jire walwalba qabo labada faamliba waa dadka ladan oo guurka iyo reerka walwal lagama qabo. sidaasaa meel walba u buuxdo khayr u tahay. iyagana waxaan leenahay ilaahna waxaanu ka baryaynaa inuu sidaa usan barwaaqeeyo. iyagana waxaanu leenahay wiilka iyo gabadhuba ha dadaaleen xafladana waxay tahay xafladaha ajarka le ajarka laga helay kamid tahay sharafkana waa arkaynaa masay tahay. waxaan ku gaabinayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inay liibaanaan. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inoo dambi dhaafo. ilaahay waxaan ka baryaynaa inaynu kulligeenba liibaano. ilaahay waxaan ka baryayaa sida ugu khayr badan inuu hayna siiyo. ilaahay waxaan ka baryayaa khayrkii rasuulka iyaga maxamedi ka baryay inuu ina siiyo. ilaahay waxaan ka baryayaa sharkii rasuulka iyaga maxamedi ka magan galay inaynu ka magan galo. ilaahay u fiiya aakhiraba wanaagga ugu sarreeya noogu taamiyeen. faataxa. garaadka ku wareejinayaa shirkaad xidhaysaa weliba guraanti weyn baa ila geel waliba dullis buu leeyahay. بسم الله الرحمن الرحيم والإسلام يا حضراننا وصفة الغدوكينا وياشا الموجودة ونيرنا حبتا مدى شغل وشوشا مني كمات والسلام والسلام والبرمت بذلك سنة كبعدي هذا بدأت المهري أنا وحكم دهي في الرحلة قبل الدولة كم دهي ممكن إذا في البلد كلام بوصل واشب عن الشر واشب عن الشر هذا الشر ربنا يرد على الشر ساسا بدأ في الدولة شيء شرف له أنا بدو ونرسي أنا ملهي إذا ما شاء الله يجري أنت شاطر عني يصير سنين صارم أنا مالهي يخويك على الشيء واشب على الشيء واشب على الإجابة أبعد عليه بعد الشيء أجيب أنا مرات يمغبون بأجلها والحين هدين يصدقوا سيما فراد قبل يفراد ورهانين يفراد غضي كتوى القشر قال قال ساسوي الليل هكذا بنان بكتوى حنوطة نفسي عطاي وانا عارف الوضع اليوم بس حضر بس حتى دون الكوهر بل نصيب اليوم يعني حنوطة لنا هكذا الوضع اليوم بنا كشاب عان الله يابو ونان بكتوى شرف بكتوى كالقعاد بكتوى تكون راهن ترى بكتوى حتى أنا أسكني مياه هو عبد السيد كان قاعد يبصر اليوم إذا كان يبصر شنو السيد كل كاتب في السماء هذا ما يقول يبصر منك كله أنا بشر وأنا تكون معقولي تبي كل ما يبصر معقولي
ونروح كان هاتوا يوم يستلموا وأقول أيه السكر قلنا بغلا كان يبغى حشيش كهوليان ويقول يدري وناد ماي تلو ماي هو استشار صار ويقول له على قليل وجهي أما تروح فرحة كلام يقولوا الكلام مستي أنت قدامك كان هذا هو فرحة أنت ترى كبر حي هذا على كبري أنا أبغى أصاب حي هذا الكلام تجرو وأنا قاعد في المدة ما تعودني كمان أصاب رأسي ومن بسوي وأنا قاعد أمي وأنا كذا أقول الدنيا هذا كلام هنا حتى هو أنا بيت بنا قاعد تبرني وأنا بقول هيدو ده ياف كلام ده إذا خلاص أنا صادق كنت كيلو بغلط كيلوتي هذا روحان ولا هذا روحها نكي يغان يقول تابو سيغان كسر ما لا بدي كان وربنا قاعد هذا هذا كبروا هذا بعد ما ستين لكن هذا خير الله كبروا إلى كبروا وصدق طيب هذا خير الله كبروا كل من استو الله كبروا يفهم كل الله كبروا قال الله كبروا يكرم الشر الله كبروا لا سأسمع كبروا خاطر خذنا وتقطوا هذا ولا نفكر ولا نفكر هذا ما يبغى هذا يغرب هذا يغرب أتقول له هذا يغرب ما على شيء خلاص خلاص قالوا أنا عملنا أنا في القصة على أنا هذا الشيء هو إلى شيء أنا هذا هو الفرق على هذا الشيء إلى غير هذا الشيء إلى الفرق فكان بعد كده على الوجه يبقى كل ما يقول عليه يمكن الرسول قال ما هو حق تطبق تعال نقرأ مصطلح على منها والرسول من اللي جاي معي وأنا أنا بتكلم في ذاتي الله يوكله سبب الخير غرا ما شاء الله كسرا ما شاء الله خصوصية الله يمشي لا تترك قبل وما يبغى لا شيء إلى ذاك ترى مطلوب لنا إذا ركع أرضي أنا مطلوب لنا إذا تترك قبل لا بسمع عنه واضح marka xafladani waa soo gabagabowday wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ذاته إلا أحد استيقيو استوى ذاته إناد اسكو دوقته لما نيستوقتيو وداق دريته إلا أحد استيقيو استوى ذاته تهين دوذات عين ددكا كمخراتيو وركينا كدير سدي تنتنا لي سبحلو تهين دوذات عين ددكا كمخراتيو وركينا كدير سدي أدب كشي تماشى ديوعية درتين بالوتومي ألو قريقين الدام درتين بالوتومي ألو قريقين الدام أدي أدب كشي تماشى ديوعية درتين بالوتومي ألو درتين بالوتومي ألو قريقين الدام إناد حريره تفي عناته دليل كذا تري الله سيدا أولي يدير إناد بسداعته إناد حريره في عناته دليل كذا تري الله سيدا يدير تحضوض وحدي قديو تنقارب يا نيمن أولاد أيدا دهشان رحمانو تقوسي تنقارب يا نيمن أولاد أيدا دهشان رحمانو تقوسي عدي أدب قرشين لما شاديو عيان درتين بالوتومي ألو قريقين الدام درتين بالوتومي ألو قريقين الدام عدي أدب قرشين لما شاديو عيان درتين بالوتومي ألو قريقين الدام درتين بالوتومي ألو قريقين الدام عدي أدب قرشين لما شاديو عيان درتين بالوتومي ألو قريقين الدام درتين بالوتومي ألو قريقين الدام noloshu waa guure raxmataale yadiyani warmowde roblekaay horamadko hayga roodine raxmaykaa
rayadii jacaylkiyo raysiyu baaday rucubtii kalgacalkiyo reexaan udgooni nafta raaxadeeday rajadaan sugaya rayadii jacaylkiyo raysiyu baaday rucubtii kalgacalkiyo reexaan udgooni nafta raaxadeeday rajadaan sugaya ayaha urooney ti lagu rakibaye maankaygu raaca allahilehe sidaa rabay rabbigii ma diidin yeeraga way ragga kanka doorto ayaha urooney ti lagu rakibaye maankaygu raaca rugta noloshu waa guure raxmakaale horamadko hayga roorine raxmaykaalay lagu baahireebay raalidii ideeqiyo reerka haydiisa lagu baahireebay raalidii ideeqiyo reerka haydiisa ayaha urooney ti lagu rakibaye maankaygu raaca allahilehe sidaa rabay rabbigii ma diidin yeeraga way ragga kanka doorto ayaha urooney ti lagu rakibaye maankaygu raaca rugta noloshu waa guure raxmakaale horamadko
rafaadko hayga roodine raxmay kaalayo rubta noloshu waa guure raxmay kaalayo